safarka waxa igu weheliyay wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska xuquuqul insaanka marwa qamar deeq khaliif oo ayadana aan isla joognay labadii maalmood oo barnaamijkaas la lafagurayay annaga oo ka wakiil ah wasaaradda haweenka arrimaha qoyska xuquuqul insaanka iyo sidii yani barnaamijkaas aan u taabigelin lahayn doorka wasaaradda haweenka ay ku leedahay muxuu yahay marka mashruucan wuxuu socon doonaa 2 sano waxaana diiradda lagu saari doonaa sida looga qayb gelin lahaa barnaamijka ku saabsan haddii ay tahay nolol maalmeedka dadka in loo habeeyo noloshooda haddii ay tahay barnaamijka nadaafadda ku saabsan iyo haddii ay tahay protectionka oo qaybta habdhowrka ah dhammaantood in ay noqdaan waxa lagu dhahaa afka qalaad gender sensitive ama ay ka muuqdaan markasta dumarka doorka ay ku leeyihiin iyo qayb nooca ay ku leeyihiin marka anaga ka wasaarad ahaan barnaamijkaas wuxuu noo ahaa waxtar shaqadeeni kamid ah waxa kale oo iyadana xubin ka ahaa shirka sida xisaab celinta loo sameyn lahaa waayo markii mashruuc noocaas la qabto markasta wax loo baahan yahay waxa in laga sameeyo reporting in laga sameeyo xisaab celin in laga sameeyo waxyaabihii la maro oo daruuriyaadka ahaa ama heerarkii loo baahnaa dhammaantood mid kasta si hufan loo maro aan si hufanna loo soo xisaab celiyo marka maadaama mashruucan ay wasaaradda fuliyaalka ka mid tahay siday u fulisay habkii looga baahnaa iyo dariiqii u mari lahayd ayaa inta badan ayadana lagu saarayay marka wuxuuna doqonaa insha allahu tacaala habkaasi in sifa loo maamuuso u noqdo wax tar leh